بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الكسود وهذا مركله iyo FPL Somali waxaa noo bilaabanaya Fantasy Premier League oo ahaa ujeedkii koowaad ee channelkan YouTube kan u furnay inaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee xiisaysa inay ciyaaraan Fantasy Premier League aan uga sheekeyno waxyaabaha wararka la xiriira fantasyga oo dhan waxaad nagala socon kartaan barta Facebook aan ku leenahay iyo Instagram-ka iyo waliba Twitter-ka oo aan si joogto ah ugu soo daawacno wararka waayadan dambe wararka suuqa kala iibsiga ay u badan yihiin oo kooxaha saxiixyada ay sameynayaan ay u badan yihiin haddii aad weli aadan furanin ama aadan weli kusoo biirin oo aad isleedahay waa maxay fantasygu waa ciyaaraha malawaalka oo inta badan ku dhisan in aad shax aad dooratid sida adigoo iska soo qaaday inaad tahay maamule kadibna ku ciyaaraya waxyaabaha faa'iidada ay leedahay oo يعني dadka oo gamerska oo dadka gameka ciyaara waxyaabahaas oo dhan ama xiiseeya waxaa lagu helaa abaalmarin joogto ah oo mid toddobaadle ah iyo mid oo bilo ah iyo weli mid xil ciyaareedka markuu dhamaado ah marka haddii aad weli furanin appka waxaad la soo degi kartaa premierleague.com ayaad appka kala soo degi kartaa kadibna waxaad furanaysaa account ay halkaa ka furanaysaa kadibna waxaa jira shuruuc ay ka mid yihiin inaad haysatid maamulatid kadibna aad kala dooratid isbuuc kasta ciyaartoy kuwaas ugu waaweyn haddii aan fiirino marka sharciyada aan isleeyahay waxyaabaha ugu muhiimsan mid u taabanaya si aad ugu soo biirtid haddii aad ku cusub tahay shaxdaada waxay ka koobnaanaysaa 15 ciyaartoy 15kaas waxay iskugu jirayaan 2 goolkiiba 5 difaac 5 qad dhexe iyo 3 weerar ah 15kaas ciyaartoy waxaad ku helaysaa qiimo dhan 100 milyan ayaa haystaa oo aad ku soo iibsan kartaa ciyaartoydaas ciyaartoydu waa kala duwan yihiin ciyaartoy kastana qiimo gaar ah ayaa saaran koox kastana waxaa ka soo qaadan kartaa 3 ciyaartoy kaliya taas waa qodobka koowaad qodobka labaad waa sida aad u dooranaysid shaxda waxaa ku soo bilaabi kartaa 12 ciyaartoy 15kaas kamid ah kadibna afarta kale waxay ku ahaanayaan kaydka ay kugu jirayaan 15kaas ayaa waxaad ka dooran kartaa kabtan iyo kabtan ku xigeen oo kabtanka markuu tusaale ahaan kabtanka hadduusan ciyaarin kabtan ku xigeenka ayaa dhibcihiisa lagu dhufanaya kabtanka dhibcihiisa mar walba waa la jibaaraa marka haddii uu kabtanka ku ciyaarin kabtan ku xigeenka ayaa dhibcihiisa lagu la jibaaraya haddii kabtankaagi kabtan ku xigeenka aysan ciyaarin oo kale waxaa dhacayso in dhibcahaagii toddobaadkaas aadan ku helin waxba oo meeshaasi aad ku weyso dhibcihii kabtanka waxaa ku xiga haddii ciyaartoydaada 12 aad soo safatay uusan mid ciyaarin waxaa jira wax la dhaho automatic substitution oo dhacaya marka toddobaadka u dhammaado oo ciyaartoygii aanan ku ciyaarin ayaa lagugu soo bedelayaa kan kale ee fadhiya ee ciyaaray wax kasta uu keenay hadduu dhibic keenay iyo haddii oo dhibic oo lagu leeyahay oo dhibic uu tusaale ahaan ciyaartoygu markuu qaato jaallo ama hadduu qaato kaarka cas hadduu qaato dhibco ayaa lagu yeelanayaa waxaa ku xiga la wareegista ayaa ku xigta oo aad sida aad suuqa kala iibsiga ciyaartoy ugula soo wareegi kartid waxaa jiro la wareegista markay noqoto toddobaad kasta ama horeynta toddobaad kasta waxaa jira hal la wareegis oo xor ah oo aad samayn kartid waxaa jira markaa haddii aad tahay qof oo tusaale ahaan usbuuca ugu horeeya oo kale hadda kan aan ku jirno oo kale waxaad samayn kartaa la wareegis aan xadidnayn oo ilaa iyo inta aad rabto ayaa la soo wareegi kartaa qiimaha waa 100 laakiin la wareegista hadda waa furan tahay maadaama usbuuc ciyaareedyada aysan weli si rasmi ah aysan u bilaaban waxaa jira jibaaro oo aad ciyaari kartid oo ay ka mid yihiin wildcard-ka waa marka ciyaartoyda aad si kulli aad wada bedelaysid oo aad keensanaysid ciyaartoy cusub ama ciyaartoy hore kugu joogayba aad yani waxaa haysataa fursad aad ciyaartoydaadii oo dhan aad ku bedeshid marka wildcard-ka noocaas waaye sidoo kale ciyaaryahanada qiimahooda oo kale isbedel joogto ayaa ku imaada waxaana lagu qiimeeyaa mar walba sida ay u kala ciyaar fiican yihiin iyo sida loo iibsado sida ay dhibco u kala keenaan ayay ku xiran tahay inta uu socdo ciyaaryahanada ama suuqa kala iibsiga amaba xilli ciyaareedka fantasiga jibaarada marka
jibaarada wildcardka waa kasoo hadlay waxaa jira jibaar la dhaho bench boost oo haddii aad ciyaartid kuu suuragelinaya in ciyaaryahanadaada kaydka kuu fadhiya dhibcaha ay keenaan lagugu daro ciyaaryahanada kale ee 11 ay kuu saftay xasuusno waxaan ku dhahay waxaad safan kartaa 11 ciyaartoy iyo 4 ciyaartoy oo banaanka kuu joogaysa marka intaas ayaa la isku kaa darayaa sidaas ayaana bench boost dhibcihiisa ku haystaa jibaarka kale ee ku xiga waa free hit-ka waa asna waa bonus waa hal mar oo kaliya ayaa samayn kartaa oo xil ciyaareedka inta uu socdo sida laakiin wildcardka aan ku xasuusiyo asna wuxuu leeyahay 2 mar ayaa samayn kartaa wildcardka marka hore xil ciyaareedka intuu kala barka marayo ayaa helaysa hal xabo marka kadib marka laga gudbo December dhexdeeda marka la marayo ayaa haddana mid kale ay helaysa oo aad ku bedelan karta ciyaartoyda waxa sida loo sameeyay waxay tahay maadaama suuq kala iibsi uu jiro oo ciyaartoy cusub ay soo galayaan xil ciyaareedka laga yaabo ama ciyaartoy kalena ay tagaan marka fursadaas ayaa haysta oo aad ciyaartoyda ku bedeli kartid marka free hit-ka wildcard-ku ka duwan yahay free hit-ka waxa waaye ciyaartoyda waa bedelaysaa laakiin isbuucaas marka ku ciyaartid isbuuca ku xiga ciyaartoyda hore ayaa ku soo laabanaya marka free hit-kana waa noocaas waxa ku xiga jibaarka loo magacaabo triple captain kabtanka waxaan ku sheegay inuu leeyahay laba jibaar oo kabtanka dhibcihiisa markaas lagu laba jibaarayo laakiin waxaa jiro jibaarka la dhaho triple captain oo dhibcihii kabtanka ayaa lagu 3 jibaarayaa oo sidaas ayaad ku helaysaa kabtankaagii oo dhibcihiisu ay yihiin 3 marka triple captainka waa noocaas jibaarada markaan ka gudbo waxaa jiro kama dambays oo xil ciyaareedka intuu socdo waxaa jirta mar aadan samayn karin oo shaxdaada wax ka bedeli karin oo aadan suuq kala iibsi aad samayn karin marka waxaa jira waqti lagu qabtay oo intuusan bilaabanin isbuuc kasta oo aad la socon kartid oo aad isbuucaas ka hor aad samayn kartid isbedel kasta oo aad rabtid haddii aad rabtid inaad suuq kala iibsi aad samaysid haddii aad rabtid inaad shaxdaada wax ka bedeshid haddii aad rabtid inaad kabtan dooratid marka waa xasuusnoo wuxuu leeyahay toddobaad kasta markuu bilaabanayo tusaale ahaan hadda xil ciyaareedka wuxuu bilaabanayaa maalinta jimcaha ah 13 bisha Agoosto hadduu Ilaahay yiraahdo marka deadline-ka ama kama dambaysta wax ka bedelista shaxdaada waxay ku eg tahay 2 saac iyo bar xilliga geeska Afrika maalinta habeenka jimcaha oo habeenka sabtida ay soo galayso sidaas ayuuna yahay marka deadline-ka waa la socon kartaa deadline-ka ugu dambeeya haddii aan xuso oo isbuuc ciyaareedka 38aad waxa uu noqonayaa 22 bisha shanaad 2022 ayuu noqonayaa taariikh markaas waxa 9 saac iyo bar ayuu noqonayaa deadline-ka ugu dambeeya xilli ciyaareedkan waxaa jira sidoo kale qaabka ay ciyaartoyda dhibcaha ku kala helaan ciyaartoyda dhibcaha waxay ku helaan qaabab kala duwan iyo dhibco kala duwan dhibco waxaa jira loogu daraa iyo dhibco laga jaraa marka haddii uu ciyaartoyga ciyaaro 16 daqiiqo hadduu ciyaaro wuxuu helayaa hal dhibic ciyaartoyga hadduu ciyaaro 16 daqiiqo ka badan waxa uu helayaa 2 dhibcood ciyaartoyga haddii uu yahay gool haye ama difaac hadduu gool dhaliyo waxa uu helayaa 6 dhibcood haddii ciyaartoyga goolka dhaliyo uu yahay qad dhexe wuxuu helayaa 5 dhibcood qadka dhexe iyo goolahayaha ama difaaca waxaa u dhaxayso 1 dhibic marka goolahayaha wuxuu helayaa 6 dhibcood iyo daafacaba halka ninka khadka dhexe ka ciyaaraya uu helayo 5 dhibcood haddii uu gool dhaliyo haddii striker ama weerar uu dhaliyo gool waxa uu helayaa 4 dhibcood ayuu helayaa caawin kasta oo shakhsi uu sameeyo ama goolahayaha noqdo ama difaaca noqdo ama weerar ha noqdo waxa uu helayaa 4 dhibcood aan raade 3 dhibcood caawinta waxaa lagu helaa 3 dhibcood haddii goolahayaha ama difaaca ay ilaashaan shabaqooda waxay helayaan 4 dhibcood oo shabaq ilaashisho ah 4 dhibcood oo shabaq ilaashisho ah haddii sidoo kale shaxdaas ama shaxdaada uu ka mid yahay ciyaartoy oo qad dhexe ah oo sidoo kale ka mid ah koox shabaqeeda ilaashatay wuxuu helayaa 1 dhibic oo shabaq ilaashisho ah haddii goolahayaha uu safgareeyo ama uu badbaadiyo ilaa wax ka badan 3 darbo waxa uu helayaa 1 dhibic oo dheeraad ah ayuu ku helayaa haddii goolahayaha uu badbaadiyo sidoo kale rigoore waxa uu helayaa 5 dhibcood oo dhibco ah haddii
player ama ciyaaryahan uu penalty loo dhigay rigoor loo dhigay uu dhalin waayo waxaa laga jarayaa 2 dhibcood. bonus waxa la yiraahdo ayaa jiro dhibco dheeraad ah oo qof walba lagu qiimeynayo qaab ciyaareedkiisa iyo yani jaanis abuurista waxyaabaha ka dhaco ciyaarta waxaa lagu helaa ilaa 1 ilaa 3 tiro intaas leeg oo dhibco oo dheeraad ah ayaa lagu helaa. haddii gool haye ama difaac uu gool laga dhaliyo waxaa laga jarayaa 1 dhibic. haddii uu jaallo qaato ciyaaryahan waxaa laga jarayaa 1 dhibic. haddii uu red qaato ama kaarka cas uu qaato waxaa laga jarayaa 3 dhibcood. haddii uu qof ama ciyaartoy uu iska dhaliyo goolna waxaa laga jarayaa 2 dhibcood. xeerarkan waxaa aad u xusid mudan in shabaq ilaashada gool dhalinta iyo caawinta ay dhibco dheeraad ah ku helayaan qadka dhexe weerarka iyo xeerar kale oo kala duwan oo yaryar ayaa jiro. tusaale ahaan banooniga oo caawinta oo kale mararka qaar waxaa dhacdo in banooni uu soo tuuray goolayaa uu soo bixiyo kadibna lagula celiyo. mararka qaar caawinta waxaa loo diiwaangeliyaa midka banooniga soo tuuray. xeerarkaas noocaas ahna waa qeybo kale ayaan ka samayn doonaa oo sida loo sameeyo oo kale dhibcaha dheeraadka sida lagu helo oo kale taasoo kale waxaan ka samayn doonaa dib ayaan ka samayn doonaa. xeerarkaas waxaa kaloo shuruucda waxaa ka mid ah inaad ku biiri kartid league inaad ku biiri kartid. tusaale ahaan hadda fantasy premier league ama FPL Somali waxaan sameynay league oo linkigiisa aan halkan hoose soo dhigi doono oo aad ku soo biiri kartid. liigaas oo kale ku soo biiri kartaa. liigaasna waxaa lagu qiimeeyaa dhibcaha aad helaysid toddobaad kasta iyo saaxiibada aad isla tartamaysaan ayagana waxay helaan. sidaas ayaad kula socon kartaa. saaxiib yaal aad u mahadsantihiin. waxaan rajaynayaa in xil ciyaareedkan uu noo noqdo mid aad u qiimo badan oo aan meelo badan aan ka tartanno. waxaan sameeyey league oo fantasy FPL Somali aan league u sameeyey. liigaasna waad ku soo biiri kartaan oo halkan ayaan linkiga soo dhigayaa. waxaad nagala socon kartaan dhinacyada Facebooka, Instagramka iyo Twitterka oo aan wararka ku soo daabici doono insha Allah. wixii oo aragti ah oo aad qabtaan oo la xiriira xil ciyaareedka soo socda haddii ay jiraan muuqaallo ama aad danaynaysaan inaan idinka soo sameyno qodob ama mowduuc ayagana waa nagu soo gudbin kartaan halkan hoose. aad iyo mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.